wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane Dr. Saad Cali Shire xildhibaanka golaha wakiilada mudane Ibrahim Reite agaasimayaasha wasaaradda maaliyadda iyo bankiga dhexe saraakiisha dawladda scholarska jaamacadda Hargeysa ururada bulshada iyo dhammaanba ka soo qaybgalayaasha rag iyo dumar waad mahadsantihiin magacaygu waa Xasan Suudi waxaan ka tirsanahay ISIR waa xarun ra'yi abuurin ama creative thinking habraacna ay u tahay cilmi baadhistu waxaan observe garaynaa dhacdooyinka waddankeena ka dhacaya baadhis baan ku samaynaa talooyinna waanu ku ladnaa dabeetana waanu soo bandhignaa mararka qaarkoodna sida caawa oo kale waxaan u soo bandhignaa jaangooyayaasha siyaasadda waddanka hadba waaxda ama sektarka ay khusayso si falanqayn dheeraada looga sii galo hadafkayagu waa sidii loo horseedi lahaa dhaqangelinta dimuqraadiyadda ee dhammaan waaxyaha dowladda la jaanqaadka duruufaha siyaasadeed ee ka dhacaya geeskan Afrika aynu ku noolahay tayeynta wadahadallada u dhaxeeya ama 6 sanadood u dambeeyay soo dhaxmarayay Soomaaliya iyo Soomaaliland sanadkii hore 2019 ISIR waxay baadhis ku samaysay oo ay soo bandhigtay koobista miisaaniyadda sanadkii hore 2019 sida looga marin dhalin karo wadahadallada gaabsigana u badan aan guulo badan ilaa hadda laga gaarin ee u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya sababaha loo nisbayn karo hoos u dhac ku yimid ururada bulshada Soomaaliland oo muddo dheer soo jiray soona dhaqmayay 4 dhacdooyin ka dambeeyay doorashadii u dambeeyay ee madaxtooyada 5 qiimeyn lagu sameeyay dimuqraadiyadeena wixii ka dambeeya doorashada oo kaliya tamaahe hay'adaha udub dhaxaadka oo ah dimuqraadiyadu inay dhaqan gasho mar labaad sanadkan waxaanu soo bandhigaynaa falanqaynta ISIR ay ku samaysay miisaaniyadda sanadkan udub dhaxaadna ay u tahay waa maxay ishiiska ku jira ama la observe garayn karo ee ka dhex muuqda miisaaniyadda sanadkeena 2 waa maxay tala soo jeedimaha ay ISIR hayso ee loo soo bandhigi kara dowladda dhammaan baadhisaha 5 iyo kuwa kale aan soo wadnaaba waxa ay xor u yihiin dowladdu inay utilize garayso u isticmaasho hadba sektarada ama mowduucyada ay khusayso waxaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo Yaasiin Jaama oo ka mid ah cilmi baarayaasha ISIR oo soo koobaya waxyaabaha ay xambaarsan tahay falanqaynta lagu sameeyay miisaaniyadda intaan ku wareejin waxaan jecelahay iyada oo dabagalka muwaadin ama citizen monitoringku ay udub dhaxaad u tahay civil liberty-ga sidaas awgeedna aanay la yaab ahayn ISIR ama cid kale inay ku samayso falanqayn miisaaniyadda waddankeena haddana waxaan jecelahay inaan hambaliyeeyo wasiirka maaliyadda ee imika jooga Saad oo muujiyay in aanu cuqdad ka qabin in falanqayn lagu sameeyo shaqada uu gacanta ku hayo welibana nagu waafaqay inuu dadka hor yimaado oo uu kala sheekaysto findingska ama natiijooyinka iyo tala soo jeedimaha warbixinta ay hayso waxaana leeyahay hambal iyo wasiir waxaan ka baxayaa Yaasiin bismillah aad buu mahadsan yahay Xasan Suudi waxaan kaloo bartan aad ugu mahadnaqayaa intaan bilaabay presentation-kayga wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane Dr. Saad Cali Shire oo noqonaya wasiirkii ugu horreeyay ee Soomaaliland soo maray wasaaradda maaliyadda ee 2 jeer ama markii ugu horreysay dadka soo fadhiistay si wax looga weydiiyo miisaaniyaddu diyaariyay taasoo noqonaysa isagu maxay ahayd wala wasiir ahaan waddo wanaagsan uu jeexay qof kastoo ka dambeeyana inay martaa
aynu ka filayno aad baan kaga mahadnaqayaa mudan wasiir maxay ahayd dowladda kusoo ogolaatay dadka hor timaado waxaa bartan ila wadaagi doonaa miisaaniyadda wasaaradda maaliyaddu diyaarisay 2020 sida loo qoondeeyey iyo sida maxay ka imanayso dakhli ahaan iyo gaarista ku jira maxay ahayd dowladda miisaaniyadda hadday dakhli noqoto iyo hadday kharash noqoto iyo sidoo kale kala soo jeedinta maxay ahayd dowladda beebarkii aanu ka samaynay miisaaniyadda 2020 markaa saddex eeriya ayaynu eegi doonaa waa dakhliga kharashka iyo deynta saddexdaasaan ku eegaynaa wasaaradda maaliyaddu 2020 sidee bay u qoondaysaa hadday dakhliga ku horeyno inagoo eegayna si guud miisaaniyadda 2020 waa imisa 2020 haddii lagu eego Somaliland shilling waa 2 trillion iyo 46 billion ayay noqonaysaa marka lagu eego Somaliland shilling haddii dollar lagu eegana waa 245 milyan marka la 245 milyan waa marka lagu sarrifo rate-ka suuqa marka waa 245 milyan ayay noqonaysaa haddii rate-ka lagu sarrifo maxay ahayd tolay dawladdu ay isticmaasho 7,000 oo sanadkan laga dhigay 7,000 laakiinse berigi hore 6,000 ahaa waxa uu isna noqonayaa 229 milyan iyo 285 waa marka 7,000 loo qaybiyo miisaaniyaddan ay sheegayna waa miisaaniyadda dawladda dhexe dawladdu waxay diyaarsaa miisaaniyaddu waxay ka kooban tahay dawladda dhexe dawladaha hoose iyo hay'adaha madaxa bannaan dawladaha hoose iyo hay'adaha madaxa bannaan waxaan u soo qaadanin marka dawladaha hoose miisaaniyadoodu marka hore ma faahfaahsana sida golaha wakiilada ku timid hay'adaha madaxa bannaanina iyaga ayaa dakhligooda urursada sidoo kalena kharashkooda bixiya xisaab xidhka golaha la keenana kama muuqato sidaa daraadeed miisaaniyadda xisaab xidhkeeduna golaha yimaado dawladda dhexena ay maamusho waa miisaaniyadda dawladda dhexe waana taa aan noqonaysa 229 milyan haddii rate-ka dawladda aynu ku eegno xagga dakhliga waxa ku ka soo xaroonaya ilaha dakhliga miisaaniyadda dakhligeedu wuxuu ka soo baxayaa laba meelood dakhliga kastamada dakhliga cashuuraha bariga iyo dakhliga other sourceska dawladda ka imanayo dakhliga ka soo baxaya customisku waa 77.6 miisaaniyadda ay soo sheegnay cadadkeeda cashuuraha bariga waxa ka imanaya 16.8 ilaha kale oo noqonaya sanduuqa horumarinta Somaliland iyo bankiga adduunka mashaariicda ay wadaan waxa ay noqonayaan 5.6 miisaaniyaddaas oo markaa noqonaysa customiska waxa ka soo xaroonaya 190 milyan 40 milyan wuxuu ka soo xaroonaya cashuuraha bariga other source-kana 40 milyan buu noqonayaa SDF mashaariicda wadii sanduuqa adduunka isu geyn waxa weeyaan 245 milyan waa marka ku isticmaaleen rate-kii suuqa dakhligu saas ku soo xaroonaya hadday nidhaahno dakhliga domestic revenue-ga oo laga reebo dakhliga cashuuraha kale ee ina soo galaya inagu dawlad ahaan miisaaniyaddeena waxa weeyaan domestic revenue-ga oo ah customiska iyo cashuuraha bariga waxay noqonayaan waxay noo soo xaroonayaa 230 milyan 230 milyan boqolkiiba 280 waxay ka imanayaan customiska boqolkiiba 80na waxay ka imanayaan cashuuraha bariga halka waxaad arkaysaa cashuurteena xoogeedu waxay ka imanaysaa cashuuraha laga saaro furdadaha iyo kastamada lacagta naga soo xaroota boqolkiiba 80 bay lacagta ay soo saarnaa ka tay taas waxay ka dhigan tahay lacagta ay dawladdu ururisaa qofka lacagta laga qaadaa culayska ma fuule waxa uu fuulaa qofka shayga iibsada ee suuqa wax ku iibsada oo waxa weeyaan in direct tax-ka waxa weeyaan 18% oo intooda badan ka soo xaroonaysa maxay hay toolay lacagta laga qaado qofka shaqaalaha ah haddaad eegtaan buugga imika ay wasaaradda maaliyaddu idin qaybisay lacagta laga qaadayo qofka shaqaalaha ah iyo lacagta laga qaadayo macaashka kombanida ay macaashaan midna waa 45 bilyan midna waa 93 bilyan qofka shaqaalaha waa ka u badan yahay dakhligiisu haddeen eegno dakhliga customiska aan sheegnay boqolkiiba 280 baa customiska ka imanaya waxay ka imanayaan afarta customer ugu horeeya sidana uga soo kala baxaya customka maxay ahayd berbera boort waxa ka soo baxaya 760 maxay ahayd customka kala bayd waxa ka soo baxaya boqolkiiba 17 customka maxay ahayd sayla
saylac aymi saylac waxa ka soo baxaya boqolkiiba 7 airportka hargeysana waxa ka soo baxaya boqolkiiba 3 marka lacagahana way ku hoos qoran yihiin berberi waxay soo saaraysaa 128 milyan kalabeer waxay soo saaraysaa 230 milyan saylac waxa ka soo baxaya 13 milyan 5.9 milyan waxa ka soo baxaysaa customiska lacagta customisku boqolkiiba 4.9 bay ka tahay lacagta guud ee customiska dalka inoo soo xaroonaya 15 customna wasaaradda maaliyaddu way leedahay boqolkiiba 4.9 waxay ka soo baxayaan afarta custom lacagta customiska ka soo baxaysa cashuuraha beriga haday nimaadno hargeysa ayay inta ugu badan ka soo baxaysa boqolkiiba 70 lacagta ay soo sheegnay 40 milyan ahayd waxay ka soo baxayaan boqolkiiba 70 hargeysa oo 28 milyan berbera ku xigto boqolkiiba 18 waxa weeyaan 7 milyan boorama ayaa ah 4% 1.7 burco ayaa ah cashuuraha berigana afarta magaalo waxay soo saarayaan dakhliga cashuuraha beriga ka soo xarooda boqolkiiba 6.9 boqolkiiba 4 ayaa ka soo xarooda dalka intiisa kale marka afarta magaalo ayuu ka soo baxaya customiskuna afartii meelood hore ayaa boqolkiiba 4.9 ka soo baxaya maxaa ka maqan hadaba miisaaniyadda intaas waa source ka soo baxayeen dakhli baa ka maqan miisaaniyadda ay ahayd inay ku jirto dakhligaas marka kama muuqato buugga miisaaniyadda ee golaha wakiiladu ansixiyeen dakhliyada waxa kamid ah dakhliga waxa kamid ah hadeen eegno barta waxa inagu qoran hadaa aragtaan GST-ga laga qaado biyaha hargeysa biyaha ma wada isticmaasho boqolkiiba 25 baa isticmaala anigu ku jiro boqolkiiba 25 ka isticmaala biyaha marka biilka bixinayaan 5% baa laga qaadaa salis tagasa 5% gaas la qaadaa GST-ga lacagaha kuma jirto GST-ga waxa ku muuqda talaydka iyo telecommunication-ka iyo hoteelada laga qaado marka waxa isweydiin leh wakaaladda biyuhu macashuuraha beriga un bay soo raacisaa iyadoo aan madaxii xusayn waxa kaloo kamid ah airport security charge sanadkii hore August baa dawladdu la soo wareegtay lacag lagu $26 golaha wakiilada hore waxay u ansixiyeen $10 laakiin si aakhirkii 26 bay gaadhay 26 kaas dadka waa laga qaadaa waxaana dadka loo sheegay in cashuurihii in laga soo wareejiyo companygii lahaa 26 ka milyan kama muuqdaan sanadkii hore wax isla 18 sida buuga warbixinta oo budget outlook bay warka soo saaray 130 kun oo qof baa madaxka ka duulay waa inta ka duushay marka inta lagu dhufto waa lacag badan oo 4 milyan ku dhow 4 milyanna kama muuqato miisaaniyadda waxa kaloo miisaaniyadda ka maqan parking-ka oo isaga gaari kasta $1 laga qaado oo loo sheegay in laga soo wareejiyay companygii private-ka ah meelaha kale ka maqan waxa kamid ah Berbera Oil Terminal haamaha shidaalkana waxa laga soo wareegay dadkii laakiin se miisaaniyadoodu way madax bannaan sida hay'adaha madaxa bannaan lacag 76 bilyan ayaa soo galaya isla iyada ayaa 76 bilyan kharash gareynaysa ma dadkii haamaha berigii holaaba lacagtii la siinayay ku jirtay mahaamo cusub ay fasmado kharashkoodu inta leegay baa ku baxaya maxaa dakhliga uga soo xarooday miisaaniyadii markii laga soo celiyay dadkii ma iyadoo baa isbixisay oo kharash iyo maxay dakhligeeda isku filnaatay maxaa inaga soo kordhabeen leenay meesha ay eegayna waxa weeyaan mashruuca ugu weyn ee maalgashi ee wadanka ka dhacay wuxuu ahaa intii ay Soomaaliland jirtay mashruucii DP World oo ahaa waxaan ka filaynay wax faraweyn oo lacag inay ka soo xarato DP World 3 lacagayo way ka helayni 5 milyan waxa ay kira sanadlaha oo sanad walba lagu siinayo 10% ina waxa ay ahayd maxay ahayd lacagta dakhliga ay DP World xoreyso intaan kharashka laga jarin in 10% Soomaaliland la siiyo 90% ga soo haray ayaa kharashkii laga jaraya dekadu ay gashay in kharashka DP World marka kharashka laga jaro dakhliga soo hara ayay 65% ilahayd DP World inaguna ay lahayn 35% keena kama muuqato laakiin 5 milyan kiradu miisaaniyadda way ka muuqataa miyaan 3 sano ay DP World ka haysay horta wax faa'iido ka soo bixin haday se ka soo baxeen maxay naga soo xarooday miiskiroon bay naga soo gashay waxa kaloo iyaduna ay leena intaas waa dakhliga naga maqan DP World labada lacag baa maqan hadaad eegtaan heshiiskii DP World uu la saxay qodobka 29aad qodobka 29aad iyo qodobka 11 ee concession payments-ka ayaa sidaa dhigaya aan idin soo sheegay marka heshiiskiina saas u dhigaya lacagtiina ma hayno marka waxaan eegaynaa oo ku yar soconaya sooray expenditure-ka eegaynaa
dakhliga sidaas intaas ay ka maqan yihiin uu la soo saarayo sidee kharashaan loo qoonteeyay kharashka haddaan eegno sida wasaaraddu u qoonteysay buugga miisaaniyadda ee wasaaraddu idin qaybisayna hortiina ka muuqataan expenditure-ku boqolkiiba 47 wuxuu ku baxayaa mushaharaad boqolkiiba maxay ahayd toole 26 wuxuu ku baxayaa recurrent expenditure kharashada hawl socodsiinta oo intooda badan ah habeen dhaxyada shidaalka stationeryga iyo waxaas that means waxa barta ka dhigaysa boqolkiiba 26 hadduu ku baxayo kharashaadka hawl socodsiinta waxa barta ku jira saddex shay oo waaweyn oo ah kharashka shidaalka kharashka dayactirka gaadiidka kharashka maxay ahayd toolayn telecommunicationka kharashka xafiiska ee wax la soo iibsanayo markaas wadiintu waxa weeyaan dawladdu qaybtaas miyaan barbar kulmad loo sameeynin oo national tender board la marin shidaalka dawladda maadaama miisaaniyadeena in ku dhow boqolkiiba 26 ay kharashaad ku baxayso oo intooda badan shidaal iyo dayactir gaari iyo ayntiyiin maxaa bartaasna ay noqonaysaa inta kale waa government development projects mashaariicda horumarinta ee dawladda mashaariicdaasna markaad eegto horumarinta ku magacaabani waa dhismayaal dayrka la dhisayo mashruuca maxay ahayd toolay dayactirka jeelka mashruuca library-ga dhismayaal weeye barta waxaan u dul istaagayaa 7 cusbitaal oo miisaaniyadda ugu jira kharashaadkooda waxa ka badan lacagta heerka ugu jira habeen dhaxyada waxa ku jira 10 bilyan 7 cusbitaalna waxa loo qoondeeyay 7 bilyan marka cusbitaaladii kharashka loo qoondeeyay iyo habeen dhaxyada gudaha ma hadibada marka waxa isweydiin leh wasaarad kasta ay miisaantii hargeysa burca tagtay lacag soo kharash galaysa maadaama 10 bilyan oo milyan iyo 300 kun oo dollar loo qoondeeyay habeen dhaxyada gudaha habeen dhaxyada dibadda weeyna ma waa ku gudaha wasaaradu ku baxaan fixed assets waxa ku baxaya 7.5 fixed assets waxa weeyaan soo gaadiidka iyo waxay hantida maxay ahayd toolada shaqada lagu wadayo ee la soo iibsanayo miisaaniyada waxa ka muuqda baabuur badan oo la iibsado haddaad aragto buugga xisaab xidhka ee 2017 waxa la soo iibsaday 790 gaari ayay dawladdu soo iibsatay xisaab xidhka 2018 waxa la soo iibsaday 35 gaari labadaas sano oo kaliya gaadiidka liibiya markaad aragto sanadkan wasiirka maxay ahayd gudoomiyaha hay'adda shaqaaluhu agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka waxa uu ku wareejiyay tirada darawalada ee ka register garaysan hay'adda shaqaalaha waxay noqdeen 423 darawal marka 423 darawal ay yihiin darawalada gaadiidka ku qoran baabuurta aynu wadanaana ay dawladdu iibsataa sanad kastana 100 gaari ay yihiin halkaana weyneynaa xagga kale ee waxaan sheegaynaa intaas waa kharashaadka haddaba kharashaadkanu waxaan leenahay qorshaha horumarinta qaranku pillars buu ka kooban yahay ama tiirarka waxa uga midan ka wax soo saarka oo ka kooban 3 wasaaradood imika 2 ay noqdeen markii la diyaarinayay waxa ka mid ahaa wasaaradda beeraha wasaaradda kalluumaysiga wasaaradda xanaanada xoolaha imika kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha isku wasaarad saddexdaas oo la isku daray ayaa production sector ah national development plan 2 waxa loo qoondeeyay in qorshahaas si loo gaaro ujeedooyinka horumarineed ee qarankan sanad kasta miisaaniyadda ay ku yeeshaan miisaaniyadda yana oran sanad kasta lacagaha lagu kharash gareeyo 49 milyan ilaa iyo 60 milyan sida uu qorayo buugga maxay ahayd horumarinta qaranka 60 milyan ilaa 49 milyan marka 60 milyan 49 milyan waxa ka imanayaan dawladda Soomaaliland hay'adaha Soomaaliland caawiya ee caalamiga horumarka kala shaqeeya inay geliyaan marka 60 milyan iyo 49 milyan waxaan ka rajaynaynaa adduunka mise qorshahan qoranay miisaaniyadeena qayb baan ugu daraynaa wasaaradaha marka waxaan oranaynaa slide ku xiga haddeen eegno missing priority of national development plan 2 adeegtaan wasaaradda warfaafinta waxa ku baxa sanadkii 5.4 milyan wasaaradaha aan soo sheegay ee aynu naqaano production sector-ka sida livestock iyo agriculture-kana waxa ku baxa midna 4.5 midna 1.9 labadaas oo la isku daray waxay noqonayaan inay naga baxaan sanadkii 5.4 bay noqonaysaa markay 5.4 laba 6.4 marka 6.4 baynu qorsheynay meeshii la inaga doonayay 49 milyan 46 milyan ku baxaan marka intii kale hay'adaha caalamiga ah ka sugaynaa waxaan bartan ku eegnaa priority-ga hadda marka la eegtaan wasaaradda warfaafintu waxay wasaaradahan uga badan tahay wasaaradda warfaafintu livestock biyaha environment-ka iyo agriculture-ka waxaan eegaynaa
wasaaradda maaliyaddu waxay u qoondashay sectors haddeen marka la eegno sectorska security-ga waxa ku baxaya 430 xagga sare waxa ugu sareeya arkaysaan waa energy-ga environment-ka iyo maxay water-ka production-ku wuxuu ku baxaya 2.7 marka waxaad arkaysaa mudnaantii xagga sare haddaa eegtaan energy-ga iyo environment-ka iyo biyihi iyo production-kii wax yar baa inaga baxa runtii miisaaniyaddeenu security-ga ku baxda taana dowladda aad kuma laho oo wadan waxay nahay ma garanaysaa ciidankiisu iyo hawshiisu isagu dhammaan finance gareeya laakiinse waxaan leenahay sectorska sare iyo warfaafinta hal isku eego ayuun bay naga tahay markaan sheegayno waxaan kale eegi doonaa qaybta aynu bixinay deynta intaas waa kharashkii iyo dakhligii iyo kharashka gaabisi ku jiray iyo dakhliga gaabisi ku jiray waxa jira deyn sanad kasta miisaaniyadda Soomaaliland waxaan aragnaa deyn baa lagu leeyahay xalka hoose bixinta deynta haddaynu eegno deynta miisaaniyadda sanad kasta ku jirtay la bixiyay haddaad eegtaan sanadkii 2013 0.29 milyan weeyaan haddaad eegtaan US in milyan weeyaan sanad kasta way korsay 0.8 1.6 1.3 sanadka imika 2020 10 milyan ayaa ku baxaya deyn waliba miisaaniyaddan imika waxa ku wanaagsan in ugu mahadnaqina wasiirka waxa uu kala saaray laba arrimood oo inta badan dowlad wasaaraddu isku qaldi jirto aha deynta iyo kharashaadka taagan oo kharash laga sugaya deyn maaha wuxuu soo wareegayaa in curaarta sanadka dambe laakiinse wuxuu qoray wasbuga ku qoran maaliyadda deyn iyo kharashaadka taagan haddii kharashaadkii taagnaa loo qoondeeyay lacag 60 bilyan 80 bilyan deyntu muxuu yahay haddaba deyntaas si aan u aragno deynta miisaaniyaddeenu waxa weeye miisaaniyad dheelitiran balanced budget oo kharashka iyo dakhligu dheelitiran oo daraska kharash iyo dakhliga hadduu dakhliga aad filaysay ama aad darastay uu soo xaroon waayo sida caadada ah kharashaadka ayaa taraysa waayo deyn ku siin mayso waxa kale oo eegi doonaa 2017 waxa madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Soomaaliland Daahir Riyaale ka inuu sameeyay 2% loo qaado horumarinta gobolada bari maantana waxaan joognaa 2020 sanad kasta waxa lagu soo diraa miisaaniyadda 25 bilyan iyo 24 bilyan miisaaniyadda oo loo qoondeeyo horumarinta gobolada bari gobolada barina waxa weeyaan saddex waa Sanaag bari iyo Sool iyo Buuhoodle saddexda meelood lacagta sanad kasta loo qoondeeyay lacagta sida loo qaado haddaan eegno waxa lacagta 2% la saaraa qof kasta oo customiska ama furdada ama meel wax kala soo degaya marka cashuurtiisa la cashuro 2% la horumarinta gobolada bari 2018 waxa lacagta loo xareeyay noqotay 46 bilyan oo noqonaysa in ku dhow 9 milyan shan biloodkii hore 2019 waxa loo soo xareeyay marka la eego lacagta soo xarootay 2%-ga u soo xarootay waxay noqonaysaa maxay ay toole in 4 milyan iyo 300 kun labadaas sano ay imika ugu dambeeyo kaliya lacagta loo qaaday maxay ay toole waa 13 milyan haddaan eegno tala bixinta ay soo jeedinayso maxay ay toole in paperka ay qortay isir waxa uu noqonayaa koowaad wuxuu noqonayaa in la eego miisaaniyaddeena inta badan waxa ku baxday recurrent expenditure in recurrent expenditure dib loo eego oo la eego kharashaadkan ay galnay xafiisyada ee hawl socodsiintu miyay yihiin kharasho dhaba oo xafiiska looga baahan yahay waxaan kale eegaynaa inaan eegno maxay ahayd tole in culayska ayaamahan dambe waxa jirta cabasho ka imanaysa ganacsatada oo cashuurtan macaashka la saarayo iyaduna waxay ku keenaysaa culays small businesski wuxuu ka yahay dhaqaalaha wadanka 90% marka loo eego marka small businesska haddaan culayska saarno dhaqaalaheena daacaya haddaba sidee uu culays ku dhacaya macaashka waa 10% waa meelaha ugu yar baa geeska Afrika iyo Afrika marka loo eego laakiin sida loo qaado darteed oo inooga soo qaloocatay ayaa waxay keenaysaa inaan imikana si cilmiye leegan tusaale ahaan oo kale qofku waxa la leeyahay markaad faa'iido 10% qof baaba labadii sano ugu dambeeyay faa'iidin laakiin 7 sano ugu horeeyay aad u faa'iiday labadii sano ayaa culays badan la saaraya iyadoo aan la eegin xaaladiisii ma garanaysaa ganacsaduna waxay sameynayaan ma keenayaan statementkoodii sax ah oo iyaga laftooda dhaliishay balleey haddaba waa in la keenaa system kale oo lagu maareeyo ganacsada kii cashuurta la baxsanaya iyo kii maxay ahayd cashuur bixiyaha wanaagsana culaysku aanu wada fuulin ee kii cashuurta la baxsanaya culaysku xoog loo saaro aad baa waxaan ku soo dhaweynaya inaan sameeyno wax loo yaqaano wasaaradda imika sida ka muuqata national development plan-keena
iyo wasaaradda maaliyaddu isma waafaqayaan sidii wasaaradda maaliyaddu u qoontaysay wax iyo qorshaha horumarinta qaranka ay noo dejisay wasaaradda qorshayntu taana waxaan u aragnay inay laba wasaaradood kala ahaadeen mushkiladda ay keenayso si taa loo yareeyo waxaan soo jeedinaynaa ama beebalka ku talinayaa in la isku daro wasaaradda qorshaynta iyo wasaaradda maaliyadda oo hal wasaarad la iskaga dhigo oo qofkii qorshaha dejiyey budgetkiina ugu talagalo oo inta badan dunida ay isticmaasho ayaan idina soo jeedinaynaa kolley waxaan sameynaynaa ta kale ugu dambeeya wuxuu noqonayaa xisaab xidhka miisaaniyadda golayaasha uu ka raagaa ama golayaashu ku raagaa ama xisaab xidhku xisaabiyaha guud buu ku raagaa ama hanti dhowraha guud buu ku gaaraa xeerarka inoo qoranna waxay sheegayaan 4 bilood inuu haysto xisaabiyaha guud 2 biloodna inuu haysto hanti dhowraha guud intaa wixii ka dambeeyeen golaha la geeyo sida xeerka maamulka maaliyadda ayaa sheegaya بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله xildhibaanka dhalinyarada ka soo qayb gashay xafladan aadka u quruxda badan leh mid walba waxaan ku salaamayaa magaciisa iyo mansabkiisa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ugu horeysa waxaan runtii hambalyeynayaa isir doodan ay qabteen iyo inay garteen inay isku taxallujiyaan sida loo maamulo miisaaniyadda qaranka waxaan kaloo uga mahad celinayaa dhallinyaradiina kasoo qayb gashay faraha badan leh runtii waa na sharifteen inaan kasoo qayb gashay munaasabadan su-aalahana su-aal walba waa na weydiin karaa haddayna su-aashu dee munaasib hayna waanu odhan doona munaasib maaha haddii aanaan garanayno waxaana garan mayno haddaanu garanay waynu ka jawaabayna miisaaniyaddu waa qorshe maaliyadeed oo inta badan sanadla ah waxay ka kooban tahay dakhli iyo kharash bay ka koobantahay process bay martaa processkaasi waxa weeye waa la diyaariyaa waa lala tashadaa waa la ansixiyaa waa la xisaabiyaa waa la dabagalaa miisaaniyad waliba waxay ku bilaabantaa diyaarin waxaanay ku dhammaata auditing haddii jeer auditku wuxuu qaataa sanad imika miisaaniyaddii sanadkii 2018 ayaa auditingkeedu hadda u dhammaaday sanadkiina soo dhaafay 2019 miisaaniyadda diyaarinteeda iyo habmaamulkeeda waxaanu u raacnay habka maamul wanaagga maaliyadda BFM-ka loo yaqaano habkaas wuxuu odhanaya calendar buu leeyahay habkaasi calendarkaas wuxuu odhanaya marka ugu horeysa waa in budget maxaa dhahdaa outlook paper la sameeyo budget outlook paperku wuxuu ka kooban yahay xaaladda dhaqaale siday tahay ila miisaaniyadu dhaqaale ku fadhi tahay haddaan dhaqaaluhu aanu caddayn halku joogo iyo halku u socdo marka miisaaniyaddii lama samayn karo waayo waad miskaraynaysa targetkaaga wuxuu kaloo oganaya waa in la sameeyo fiscal framework in la sameeyo ayuu u baahan yahay kaasina waxa weeye odoraska dakhliga siduu noqon doono 3 sannadood ee soo socda aragtideeda kaana waa la sameeya ka bacdi waxaa bilaabmaya wadatashi taxanaha wadatashigaas wuxuu ka bilaabmaya cabinetka guddi buu leeyahay miisaaniyad guddi bay leedahay kaasaa lagala tashadaa kaasuu markuu dhammaado waxaa loo gudbaa baarlamanka kaasuu markuu dhammaado waxaa loo gudbaa dadweynaha kaasuu markuu dhammaado waxaa loo gudbiyaa hay-adaha waxaan leenahay ilaa 59 hay-adooda miisaaniyada gooniya kala leh marka hay-ad walba waxaa laga codsadaa inay soo diyaariso miisaaniyaddeeda miisaaniyaddeenu waxay leedahay 2 feature bay leedahay ama 2 astaamood mid waa incremental sanad walba halkii markii hore ay joogtay ayaa laga kordhiyaa wax wasiir walba wuu filayaa in loo kordhiyo miisaaniyaddiisii hore markay soo qadimaan miisaaniyaddoona waxay ku saleeyaan baahidooda
marka inta badan amba waabay soo labalaaban amba waabay soo saddex labalaabanba miisaaniyadda ay soo qadimeen ayaa markaa negotiation laga galaa kana suurtagal maaha kana priority noo maaha lacagtaa intaa ma haysano negotiation baa laga galaa negotiationkaas markuu dhammaado ayaa lagu celiyaa golaha wasiirada dabeedna waa la munaaqasheeyaa haddii markaas saa lagu ansixiyo waxaa loo gudbiyaa baarlamanka baarlamankuna uu ka baaraandegaa waan hortagnaa baarlamanka waa difaacnaa baarlamanku wuu baaskareeyaa markuu baarlamanku baaskareeyo markay xog soo noqotaa madaxweynuhu markaa wuu ogolaadaa dikratu ku ogolaadaa dabeedna anaa circular sameeya aan kaga codsanayo wasaaradaha iyo hay'adaha inay isticmaalaan budgetkii kaashada daraad baanu saxan dabeedna waa lagu dhaqmaa dabeedna waxay imanaysaa kharash bixintii wasaarad waliba waaranadeeda ay soo dalbataa loo ansixiyaa kharash may gashana foojirada ayay keentaa halkaasay bahasho martaa marka wasaaradda maaliyaddu waxay mas-uul ka tahay marka diyaarinta iyo bixinta iyo ku ilaalinta xagga ku ilaalinta waxaa kaloo isna mas-uulta saaran tahay auditor generalka iyo xisaabiyaha guud ma bixiyo lacag aan waafaqsanayn nidaamka miisaaniyadda iyo wixii loogu talagalay marka horta miisaaniyadda halkaasay martaa broseska ilaa 14 tallaabo ilaa 15 jaranjaro ayay martaa miisaaniyaddeeda xagga haddaan shira dul taago dakhliga miisaaniyaddeenu wuxuu ka yimaadaa siduu u badan yahay aad buu ugu badan yahay kastamyada ayuu ka yimaadaa wadamada harumaray amba guud ahaanbaba caam ahaanbaba lacagta ugu badani waxay ka timaadaa sida caadiga inland revenue-ga waxay ka timaadaa macaashka VAT-ga amba sales tax-ka payroll tax-ka ayay ka timaadaa innaka laakiin kama timaado innaka waxay ka timaadaa custom-bay ka timaadaa lacagta ka timaada macaashka oo kale oo meelaha ugu badana wadamada guud ahaan khaasatan wadamada harumaray innaka waa 2% keliya marka ugu horeysa waxaan nahay runtii waddanka cashuurta ay yar tahay balka haddaan sira dul taago cashuurteenna macaashku innaka waa 10%. Soomaaliya waa 5%. Jabuuti 5%. Ethiopia 30%. Kenya 30%. marka way yar tahay cashuurta payrollka innaka waa flat waa 6%. si way ka fududahay marka la calculate gareena wax fudud sida kalena progressive ma waxaan waa regressive way rate ku isbedeli maayo amba $2,000 qaado bishii ama $100 qaado bishii laakiin wadamada jaarkeena kale hadda eegto aad bay nooga hooseynaa inta badan waxa weeye waa progressive weeye marka haddii dakhligaagu aad u yar yahay bixin maysid waa cashuur dhaaf hadduu badan yana marba inta dakhligaagu leeyahay ay cashuurtaadu la badanaysaa ilaa ay gaadho 35%. cashuurta saleska laftigeeda waa 5% innaka VAT ma lihin laakiin sales tax baynu leeyahay only 5%. jaararkeena haddaad aragto waa 16, 15 ugu yaraan waa 10 wey hata Soomaalida waa 10 wey wanaga cashuur qaalisan runtii cashuurta beerdanka cashuurteenu runtii saa uma badna haddaan dib ugu soo noqdo meeshuu ka yimaado waxa ugu badan customka sababtuna waxa weeye maadaama ay adag tahay in laga qaado dadka cashuurta income-ka corporation-ka payroll-ka saleska oo aanay noo register garaysnayn ganacsatada dadka loo shaqeeyo iyo dadka shaqeeya toonna waxaynu ka raacnaa halka fudud oo waxaynu isu taagnaa customka laakiin waxaynu u baahanay inuu ka guuro mustaqbalka way customka layskuma hadlayn karo waana bit regressive waa loo siman yahay
jawaankii marka la cashuuro bariiskii amba ha cuno mid miskiin amba ha cuno mid ladani isku cashuur baa saaran marka waa in a way fair maaha marka si cashuurta ay fair u noqoto waxaynu u baahan ka guuro customka oo u guuro inland revenue waa process waqti qaadanaya waa tahay himilada iyadoo annaga inland revenue si la sheegay runtii way yar tahay cashuurta kale ku xigtaa waxa weeye waa tan sales taxka وليد لفتكيدا لقما قاضو هلك وح لقى يبيه وح لقى قاضا دكده سيدا أول بعد واركيسه بربرين عشرة بدن لو قاضو عشرة تكسم كليا ما لكن عشرة كوافر بدن بالو قاضو هلك حتى معاش بقارب لقى سي قديمه هلك لقى قاضو حق الدخل جاء مركتي مادو سوري حمد حق خرج كارين مركتي مادو إنك وح وجب بدن ايتم كوجب بدن وحوي وكسكيورتي وبقول كيبا شن يصدم لكن سيدا عادي سيدا ما إما كعالم كأفريج كسكيورتي كشركة كل سكيورتي وميزانية ده وبقول كيبا لح هل كنا كي بقول كيبا شن يصدم وبقول كيبا لح إثيوبيا ده شاركنا وبقول كيبا أفر كلية جيبوتي وبقول كيبا سجال كينيا وبقول كيبا المالية ملايا شن لح ملها وي marka inaka way nagu dheeraan waxay noo baaqan lahayd kadib average-ka caalamka hadaynu hoos ku soo dhigan lahayn boqolkiiba 6 waxay noo baaqan lahayd ilaa 70 milyan oo dollar bay noo baaqan lahayd waynu wax kale ku qabsan lahayd maxaa keenay marka waxaa keenay duruufaha gobolka iyo duruufta inoo gaarka security-gu waa paramount in haddii la yidhahdo inta lagu liiskareeyo nabad caafimaad waxbarasho biyo bal prioritize garee ta kuugu mudan dadka bilis waxay odhanayaan nabad haddaan nabad la helin inta kaleba suurtagal maaha waxbarashana jiri mayso caafimaadna jiri maayo waddanna jiri mayso mar haddaan nabadi jirin nabaddu waa asal weeye marka duruufaha inagu xeeran awood baa runtii taa keenay waxaa ku xigay maamulka wasaaradda matala arrimaha gudaha oo kale maxaa dhahdaa cadaaladda qaybta baarlamanka aduu maamulka ayaa runtii ku xiga oo soo raaca isaga laftiisu inkastoo miisaaniyaddeenu uu ku weyn yahay haddana markaa la eego lacag ahaan waa lacag yar sidana miisaaniyaddeenu way yartahay وميزانية هذه ير ما كله يجي GDP جينا وكب بقول كيف تضرع هالك كينيا كتير بقول كيف استيلات دولة هالك دولار بكينيا حقات استيلات سنتي إنه واحد مقارنة تدبر سنتي ستيت سنتي أما سجال سنتي ويرنتي كميزانية دين ويرتاح تسويت بكينيا سمرك قاركود ملا أحد إن waxay naga galaa ay yaraato proportionate ahaan ayaa maadaama dakhligeenu yaray wax badan ay naga galaan way ficnaan lahayd in beeraha xoolaha inay xagga siri jireen way ficnaan lahayd waayo marka dhaqaalaheena GDP-geena 7.7 waa xoolo 7% waa beero 4% ma isku noqonayaan markaad isu geyso qiyaastii واحد ميزانية إنها رفلت كريسو والله يا بهدي حالة عادية إن كتير لهنا رفلت كرين لهي لكن حالة دان عادي جاهين برنتي كان سان إن رفلت كرين مركو تخرج كنا وساس الميزانية دينا مركها قاركود وين فلكسبل لما جود هام وين فلكسبل waayo boqolkiiba 8 mushahar bay ku baxaan mushaharku waa joogto ma yarin kartid alla saddedaad rido waxay noo shaqeeya civil servants keenu walaa 20,000 waxba dheer waa markaan lagu darin waliba shaqaalaha munashibiyada aan lagu darin just civil servants wax la yiraahdo kaliya la soo qaado ciidamadeena dad ku darto waa laga yaabaa payroll keenu yahay 50,000 bil walba كنت أقول قفين سوى حاضران مركا حبك ما قاعد كرت وأنا 48% of the ميزانية دي
26% waxa weeye waa recurrent cost dee haddaan recurrent cost la helin hawla socon mayso haddaan shidaalkii la helin oo nalkii la helin oo biyihii la helin oo telecommunicationkii la helin oo aan la soconin oo baabuur la qaadanin dee hawsha socon mayso hawshaa khasbaysaa in kharashaadkaa la galo runtii see u socoto marka taasuna intaasay naga gasho marka waxa kuu soo hadaba runtii waa wax yarbaba at your own discretion aad mataqaana manipulate kartaa sanadkiiba mashaariicda waxaa ku qoran boqolkiiba 8 baa ku qoran soconka ma boqolkiiba 8 baa ku qoran infrastructure-ka waxaa ku qoran amba assets-ka 7.7 baa ku qoran hadalkaas waxaa noqonaya qiyaastii 15% 2%-ka ilaa 1% baa gala isaguna mashaariic waa ilaa 16-17% baa mashaariic inaga gala marka baabuurku dee wuxuu ka mid yahay investment asset weeye investment iyo recurrent marka la kala soocayo wixii kaa gala dhul dhisme qalab mashiin gaari waa investment waana wax loo baahan yahay wax inaga khasaareen maaha waabay lagu yaryihiin baba imika haddaad weydiiso wasiirka arrimaha gudaha waxaad tirahdo baabuurta ma kugu filanti wuxuu ku oranayaa maya inta markaad u eegto inta police station aanu leenahay amba uga baahan nahay inuu boliis joogo oo ciidan joogo oo baabuur joogto aad bay noogu yartay marka runtii kharashkeennaa yar laakiin baabuur waynu u baahannahay waase haddii la yidhaahdo maxaynu uga baahannahay kuwan qaaliga ah halka aynu ka iibsanayno mid 30 kun ama aynu iskaga iibsanaba ka mid fitsbaba iyaba wayna qaadaysaa ku jirtaa meesha inkastoo fits daan ku travel garanayn haddaad dirsaad xeebta inaad martaan baad gobollada kusoo wareegto ma ku anfacayso laakiin haddii la yidhahdo maynu pool garayno intaynu soo iibsano 20 baabuur oo waaweyn oo pool ah aanu meel dhignoo dabeedna wasiirka u baahnaa halkaa uu ka qaado inta kalena iska wadana baabuurteena yaryar waa caqli wey laakiin dee baabuurka laga maarmi maayo runtii haddii aan wax yar ka yara idhaahdo heedaha halkan lagu soo bandhigay ee aan ka muuqanin miisaaniyadda sida haamaha oo kale airbortka oo kale horta waxay ku jiraan miisaaniyaddu 2 volume bay leedahay oo volume 1 iyo volume 2 marka volume 2 ayay miisaaniyaddooda ku jirta laakiin kuma jirto miisaaniyadda dowladda dhexe iminka haamaha waa tii la barafitaas gareeyey dadkii la siiyey way maal gashadeen markii la xisaabiyey guddi loo saaray waxay noqotay lacag ilaa 10 milyan ilaa 11 milyan bay noqotay lacagtay maal geliyeen haamaha markii dib loo qarameeyey dee lacagtoodii wayna helaan in la dafiri maayo marka dakhliga ka soo baxaa imika wuxuu galaa sidii deynta loo bixin lahaa lacagtaa ay lahaayeen dadkii maal gashaday airbortka sidoo kale shirkadaha maamulayay parkinka shirkad baa maamulaysay securityga shirkad baa maamulaysay shirkadaas way maal gashadeen hardware software intaba way maal gashadeen wuxuuda weli loo celiyey marka waxa weeye taasuna halkaasay martaa laakiin way fiicantay xisaab ahaan in dakhli oo dhammi soo xiroodo kharash oo dhammina uu ka baxo miisaaniyadda wasaaradda oo inkastoo still la siinayo dadkii lahaa haddana inay soo marto wasaaradda ayaa ka fiicnaan lahay arrinka ku saabsan DB Well dekedda waxaa iman jiray 2016 on average waxaa iman jiray bishii 6 ilaa 7 markab oo containers iminka 10 baa yimaada waqtigii uu qaadan jiray markab waliba wuxuu iminka qaataa 1/3 buu qaata hadduu 3 casho joogi jiray iminka 1 day ayaa lagu kala gareeya containerada ka soo degaa waxay ahaayeen ilaa 90 ilaa 90 kun bay ahaayeen manfilayaa iminka waxay marayaan ilaa 130 kun bay marayaan
shaqaalaha ka shaqeeya dekedda waa shaqaale mushahar wanaagsanna qaata xuquuq badanna leh oo aanay lahaan jirin caafimaad bay leeyihin fasax bay leeyihin athingana pension leeyihin kaan kastaan hubin health and safety bay leeyihin aad bay isu bedeleen runtii dowlad ahaan waxay naga soo galay 15 milyan oo horumarisa iyo 5 milyan oo sanad walba layna siiyo kirada barxadda barxadda innaka iskale waan kiraynuun nagu shirkadda handlinka samayso maynu wada leenahay innaka iyo DB waxaa kaloo inaga soo gala lacag laga variation waxaanu leenahay 10% of the sales every month 10% of the gross sales maha net sales maha gross sales markaa way soo shubaan bil walbaba lacagta kale aanu leenahay waxaa waa lacagta dividendska waa marka la xisaabiyo shirkadda macaashkeeda shirkaduhu had iyo jeer sanadka hore ka labaad ka saddexaad ma macaashaan imika waxaa socda investmentkii bad facekii investmentka ayaa imika aad iyo aad u socda dekedii cusbeed 400 mitir ahayd sanadka dabayaaqadiisa dhammaanaysa hawl badan oo wanaagsan baa ka socota imika haddaa tegi lahaydeen laakiin fawaa'idka DB World intaa kuma eka runtii waxaa ka badan jawiga ay abuurtay iyo dadka kale ku soo dhiirada waddanka ayaa runtii ayaa qiimo badan isaguna leh free zonekii sanadkana la bilaabaya dhismihiisii mashaariicda kale oo aan DB World ahayn laakiin la socotay ee imaaraadka nooga timi waxaa ka mid ah airportka berbera uu dhammaanaya runway uu dhan yahay waa one of the best runways anigu aan arkay in my life runways badan oo waddadina way noo socotaa iyaduna by the end of the year hopefully or early 2021 way noo dhammaanaysa insha allah biidni illaahi alkariim arrinka ku saabsan NDB-ga iyo prioritiska ta miisaaniyaddeena iyo ta NDB-gu ma iswaafaqsan yihiin mise isma waafaqsana si isma waafaqsana sina way iswaafaqsan yihiin si way isu waafaqsan yihiin imika dad aragto prioritiska sanadkan 2020 waad ka qiyaas qaadanayso miisaaniyaddu hay'ad waliba siday u korodhay waxaan ugu kororsiino badnaynay maxaan idhahdaa wasaaradda biyaha wasaaradda maxaan wax soo saarka tan macdanta caafimaadka waxbarashada marka runtii kororsiimadanu korinay miisaaniyadaha hay-adaha way waafaqsan tahay NDB-ga laakiin markaad eegto lacagta totalka ah ayaan doonaynay ama qorshaha noogu jira inuu invest garaysano kamaynaan invest garaysan miisaaniyadda way kama awoodi karo laakiin ku talagalkeenu wuxuu ahaa NDB-ga in ilaa 80% international community ay fangareeyaan marka unfortunately kaas muu xaqiiqoobin NDB 1na kama xaqiiqoobin NDB 2na weli kama xaqiiqoobin waatiya mahadsanti aad iyo aad buu mahadsan yahay wasiirku sida kalsoonida leh uu inoogu sharxay ama uu inoogu soo dhigay overview-ga iyo rationalka guud ahaan ka dambeeya qaabka ay u samaysan tahay miisaaniyaddeena qaranku run ahaantiina indhuhu xoog bay usoo eegayaano dee waa qindiga keliya ee Somaliland ay wada leedahay ay isha ku wada hayso marka waxaan doonayaa inuu gudbo wajigii saddexaad ama facekii saddexaad ee kulankeenan caawa waxa weeyaan inaynu falanqayn gallo marka already way noo fadhiyaa wasiirka wasaaraddu waxaa kaloo inoo fadhiya xildhibaankii golaha wakiilada oo isaguna gacan siin ama support inoola joogi doona haddii ay golaha wakiilada oo oversight iyo approval ba leh haddii aynu uga baahno bal hadda positionkooda iyo impressionkooda
waxaan kaloo jeclay inaan soo dhaweeyo isla yaasiin oo isaguna kusoo biiri doona falanqeeyayaasha waxaa inoo daadihin doona ugu dambeyn maxamed cabdiraxmaan maxamed soo dhawaadna falanqeynta hordhaca ee ay samayn doonaan kadib su-aalaha la qaadi doonaa su-aalahana naasir baa microfonka qofka uu siiyo dabcan maxamed cabdiraxmaan baa orderka in charge u noqon doona markaa idina waa ixtiraami doontaan su-aaluhu markaas soo ururin doona haddii ilaha ka dhigo